madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa sameeyay isku shaandhayntiisii ugu horeysay oo xilka kaga qaaday 3 wasiir halka uu 4 wasiir magacaabay wareegtada tan oo in badan la sugayay ayaa waqtigeedii ku soo beegmaysa haddaba isbedelka uu madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ku sameeyay xukuumaddiisa saameyn nooceeya ayuu leeyahay ma asiibayse meelihii u baahnaa xilka qaadista iyo magacaabista maxaynu se ka ogaan karnaa wareegtada labaad ee uu madaxweynuhu gacanta ku hayo taasi oo xilka qaadis iyo magacaabis isugu jirta warbixinteennan ayaynu ku falaqeynaa talaabo in badan la dhowrayay oo ay shacabka reer Soomaaliland u dhigtaagayeen ayuu qaaday madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro maanta waana inuu sameeyay isku shaandhayntii iyo xilka qaadistii ugu horeysay xukuumaddiisa oo muddo sanad iyo bar ku siman haatan ku sii siqaysa inta ay xilka hayso waxa jiray xafiisyo ay si gaar ah shacabku farta ugu mudayaan kuwaasi oo ay u arkaan shaqadoodu inay fadhi tahay mase aanay buuxinin shuruudihii looga baahnaa waana sababta ay u jeclaysanayeen inay maqlaan wareegto ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliland taasi oo mas'uulkaasi xilka lagaga qaaday mas'uuliyiin kalena lagu magacaabay dheelitirnaanshaha saami qaybsiga iyo cabashada gobolka Awdal ayaa iyaduna qayb ka ah sababta loo jeclaysanayay in madaxweynuhu uu sameeyo wareegto cusub oo uu xilal ku magacaabayo halka mas'uuliyiin kalena loogu duceynayo haddaba madaxweynuhu xilka ma ka qaaday mas'uuliyiintii la filayay ee ay shacabka Soomaaliland sida weyn u jeclaysanayeen in la bedelo ma yihiinse mas'uuliyiinta uu magacaabay kuwa u qalma xilalka uu igmaday wareegtada ugu horeysa ee ka soo baxday madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa waxa uu ku magacaabay 4 wasiir iyo la taliye waxaana ugu saameynaya miisaan badan xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo golaha wakiilada ka tirsan loona magacaabay maanta laga bilaabo inuu noqdo wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo afhayeenka xukuumadda Soomaaliland mas'uulkani waxa uu ka mid yahay jamaahiirtii la soo diglayay xisbiga wadani waxaana uu ahaa afhayeenka xisbigaasi marxalado kala duwan oo mucaaradnimo ayuu soo maray xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun waxa uu ahaa sanadkii 2021 xildhibaankii ugu codka badnaa golaha wakiilada ee ay shacabka reer Soomaaliland u ciimamadaan sidoo kale bulshada xogogaalka ayaa waxa ay ku tilmaameen shakhsi aftahan ah oo u qalma inuu qabto xilka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland iyo afhayeenka xukuumadda wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ayaa madaxweyne Ciro u igmaday maanta laga bilaabo inuu noqdo aadan geedi qayaad halka wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha uu madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro u magacaabay Maxamed Cabdi Maalig Dr. Cabdisalaan Xuseen Cawaale ayaa isagana madaxweynuhu uu maanta laga bilaabo u igmaday inuu noqdo wasiirka wasaaradda tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa waxa uu kale oo magacaabay la taliyaha sare ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah oo maanta laga bilaabo uu u igmaday Maxamed Cismaan Fadal halka uu madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro xilka ka qaaday 3 wasiir oo kala ah wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha wasiirka wasaaradda biyaha iyo wasiirka wasaaradda tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta 5 mas'uul ee uu madaxweynuhu magacaabay marka laga reebo xubin ka tirsan guddida ururada iyo asxaabta qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay ka soo kala jeedaan gobolka Awdal waxa ka soo jeeda 2 wasiir oo magacaabay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro gobolada barigana waxa ka soo jeeda 1 wasiir halka ay la taliye iyo wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland ka soo jeedaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waliise shacabka Soomaaliland waxa ay dhowrayaan wareegtada labaad ee madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu soo saarayo taasi oo la odorosayo inay mas'uuliyiin tiro badan xilka ku waayi doonaan waana wareegtada labaad ee isbedelka rasmiga ah ku sameynaysa xukuumadda uu garwadeenka u yahay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo shaqaynaysay muddo sanad iyo bar ku dhow wasiirro badan ayaana shacabku ay si gaar ah farta ugu mudayaan kuwaasi oo u calaamadsan madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro lana filayo inuu toddobaadada iyo maalmaha fooda inagu soo haya xilka ka qaadi doono bilowga wareegtooyinka xilka qaadista iyo isku shaandhaynta ayaana uu maanta iba furay madaxweynuhu iyadoo noqon doonta tusbax furtay iyo mid tabashada shacabka meesha ka saarta mas'uuliyiin tayalana uu madaxweynuhu ugu magacaabo wasaaradaha iyo xafiisyada kala duwan